dagaal culus ayay qarka u saaran yihiin in ay galaan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaaday durba tallaabo ay Kenya dhabarka uga jabinayso iyadoo uu u yeertay safiirkeedii fadhiyay magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya. haddaba Kenya iyo Soomaaliya maxay tahay dagaalka ka dhex qarxay muxuu yahay khilaafka xilligan ku soo beegmay ee labada wadan u dhaxeeya maadaama labadan dal muddo dheer ay ahaayeen saaxiibo inkastoo sanado ka hor khilaafkii badda uu hareeyay xiriirkooda. waxaan macluumaadkeenan ku eegaynaa ama barnaamijkeenanba aan ku soo bandhigayaa haddii alla weyne laga helo tallaabooyinka ay qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan dhinaca dowladda Kenya iyo Kenya laftirkeeda waxa ay wado sababta bahdilka ah ee Donald Trump markasta uu markaasi u hakiyo weerarada Iran. warbixin ayaa laga soo saaray golaha mustaqbalkana dalab xasaasi ah ayay direen waxay yiraahdeen Soomaaliya ku meel gaar hal lagu celiyo waa war dadka oo dhan ay ka naxeen. sidee ayaa looga falceliyay dacwadda golaha mustaqbalka ay ka gudbiyeen dowladda federaalka ee ah in gole ku meel gaar ah Soomaaliya loo dhiibo Xasan Sheekh talada laga qaado dowlad ku meel gaar ahna Soomaaliya markaasi loo dhiso. sanado badan ayaa dib loo laabanaya waa dhibaato ayana dadka qaar leeyihiin. Abshir Bukhari maxaa loogu soo celiyay gudaha dalka Kenya waxaan isla eegaynaa jawaabo culus oo ka soo baxaya labada dhinac wararkaas oo dhayaan ku haya aragtidaada noo reeb haddii ay dagaalamaan Kenya iyo Soomaaliya ayaa faa'iido qaba. dadka Soomaaliyeed isla markiiba idaacadaha iyo TV-yada ka hadleen waxay leeyihiin qaadka laga gooyo qaadka ay noo keenaan oo maalinkii daraagiska malaayiinta dollar aan ku iibsano gabi ahaanba hala jaro. Kenya barida dhulka loogu dhufto ayay shacabka leeyihiin laakiin madaxda wali cabsiga ku jirta maanta qorshe wuxuu ahaa inay soo baxdo warqad wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saareyso laakiin dib ayay u dhacday. maxay tahay sababta wararkaas oo dhan soo koobaya muuqaalka like saar siina share garee waa mahadsantahay. waxaan ku bilaabayaa waxaa banaanka u soo baxay khilaafka u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya durba ay u yeertay safiirkeeda u fadhiya magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya iyadoo lagu waday maanta oo Isniin ahayd markaasi in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay warqad dheer soo saarto oo gabi ahaanba xiriirka loogu jirayo Kenya laakiin warqadaasi dib u dhac ayaa ku yimid sida aan xogta ku helayno. yeerista safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa daaran sida aan ogaanay wada hadallo iyo dhibaatooyin kale oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhacay si gaar wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo la sheegay in laga hor istaagay inay galaan magaalada Nairobi isla markaana laga soo celiyay garoonka Jomo Kenyatta International Airport oo xarunta wadanka Kenya ee Nairobi ku yaal. wareedi ku dhow wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay safiirka Kenya ka dalban doonto sharaxaad rasmi ah oo ku saabsan dhacdada iyo sababaha keenay in mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo xeelal sarahaya loo diido galitaanka gudaha wadanka Kenya iyadoo arrintan loo arko mid saameyn ku yeelan karto xiriirka labada wadan. dowladda Soomaaliya ayaa wali soo saarin war saxaafadeed faahfaahsan oo ku saabsan dhacdadan halka dowladda Kenya sidoo kale ay aamusan tahay wararka la xiriira wasiirada Soomaaliyeed ee laga celiyay garoonka ku yaal Nairobi. dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa xilli xiriirka diblomaasiyadeed iyo Soomaaliya iyo Kenya uu wajahayay marxalad xasaasi ah iyadoo oo labada dalba ay ka wada shaqeeyaan arrimo la xiriira amniga, ganacsiga, iskaashiga gobolka iyo qodobo kale oo dhowr ah isla markaana mararka qaar uu soo kala dhex galo khilaafaad siyaasadeed mid diblomaasiyadeed iyo khilaafaad la xiriira dhinaca xuduudaha. waxaa la filayaa in kulanka maanta dhex maraya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo safiirka Turkiga uu door muhiim ah ka ciyaaro cadaynta dhacdadan iyo sidoo kale dejinta xiisadda ka dhalatay iyadoo oo indhaha lagu hayo tallaabooyinka ay labada markaasi dowladood qaadi doonaan saacadaha iyo maalmaha nagu soo aadan. dowladda Kenya ayaa axadii dalkeeda ka celisay wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Abshir Maxamed Axmed oo loo yaqaan Abshir Bukhari waxa uu ka degay garoonka diyaaradaha ee Nairobi. wasiirka ayaa lagu soo waramayaa in Kenya ay u diiday in uu gudaha u galo caasimadda dalkaas waxaana dib loogu soo celiyay Soomaaliya taas oo dhalisay hadal hayn badan. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababta ka dambeysay go'aankan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Abshir Bukhari uu wato baasaboor Kenyan isla markaana loo arkay in uu ku qaatay qaab sharci darro ah halka kuwa kalena ay leeyihiin in uu markaasi baal maray
nidaamka waaxda socdaalka ee wadankaas sidaas daraadeedna looga soo musaafuriyo gudaha dalka Kenya. dhacdadan ayaa si weyn u qabsatay baraha bulshada iyo warbaahinta, kuwaas oo iyagu falanqeynaya soo celinta wasiir dowlaha madaxtooyada Abshir Bukhari oo aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya Xashi Maxamuud. si kastaba ha ahaatee waxaa mararka qaar dalka Kenya laga soo celiyaa mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo qaarkood ay hayaan xilal sare, iyadoo dowladda Kenya sababo kala duwan ay ku diido mas'uuliyiintaas in ay soo galaan gudaha wadankeeda. dhowaan waxaa gudaha dalkaas loo diiday ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee Soomaaliya oo isagu lagu celiyay gudaha Soomaaliya, si toosana loogu diiday in uu galo gudaha wadanka Kenya. xiisad culus oo u dhaxaysa labada wadan ayaa durba gobolka laga dareemayaa, waxaanse la ogeyn saameynta iyo sidoo kale waxa ka dhalan doono haddii dhinacyada si toosa ay isugu bira afaystaan. yaa adkaan kara aragtidaada noo reeb, muuqaalka like saar, siina share gareey. waa mahadsantahay saaxiib, muuqaalkan ila daawo.